السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارتا سو دوادا waxay noo socday kooraskeeni la magac baxay CCNA Cisco Certified Electrical Associate asxaabta waxay noo socday saan horeba u sheegnay kooraskeeni la magac baxay CCNA haddaba ardayda qaar baan arkay isku mashquuliyay Englishkan badan halkan ku yaala aniga laftigeygan maanta ku casharka aniguna insha Allah casharkan laftigeeda aniga waan ka faa'iideysanayo waad ka faa'iideysaa laakiin aniga laftigeyga waan necay macallin Englishkan badan halkan ku yaala waxa wanaagsan badan waxay fahana in qofku fahmo Englishkan badani waxba u tarmayso laakiin cid Englishkan ama fahmi karaysa in iska akhristo laasim laakiin aniga waxaan kula talin qofkan Englishkan aqoon ama nacaba ha isku wareeg laakiin fahamku ka qaado laakiin luqadda Englishka sida iska dhigta adeegsaad waajib kugu tahay cidna taaga inna imgaraansa mar walba ku laasim taas laakiin waxaan ka wadaa tala ahaan Englishkan badan ha isku daalin haddaba waxaan dhahnay waxaan sameynaa mar walba wax loo yaqaan recap maxaa la hadii la xiso asharaantii hore saaxiib aan wada muraajacaysan jirnay recap waxa weeyna casharkii hore iyo casharkan isku soo xidhno sidaan isku soo xidhno waxaan dhahnay horta waxa jiraan dhan waxa loo yaqaan LAN oo loo soo gaabiyo local area network ahna shabakada ka dhisan hal meel sidaan isku ogeeyay waxaan dhahnay ma haddii shabakada LAN-ka ay ka dhisan tahay hal meel hal guri hal yar xafiis aad u yar waxa loo yaqaanaa Soho LANs maxaa loo yaqaanaa Soho LANs waa loo soo gaabiyo small office home office network ama LAN baa loo soo gaabiyo nooca labaad waxaan u bixinaa loo jiray enterprise LAN baan maanta igta haddaba waxa soo weydiinaya adiga Soho LANs ka hadaad fahantay enterprise LAN waad fahantay macnaheedu tahay enterprise LAN-ku waxa weeyaan waa Soho LANs-ki oo batay uma kuleen oo macnaheedu tahay haddaba waxaan iska baabino marka hore waxaan isla soo dhigan in Soho LANs-ka ugu banaan ay ka koobnaan karayso hal router oo internet-ka ugu xidha hal switch oo computer-adeena isku xidha ilaa 7 computer ama 10 computer hal printer haddii loo baahnaado hal access point haddii loo baahnaado meesha ay yaalaan computer-ro switch ka rabay inuu kula soo xidhmo si wireless la'aan haddii inta ay ka dhamaan weydo waxa loo yaqaanaa Soho LANs baan laakiin haddii computer-da ay bataan sala computer bay noqdeen ama wax noqdaan 100 computer waxa loo baahnaa 7 router baa loo baahnaaday waxa loo baahnaaday 7 switch oo kale waxa loo baahnaaday printer badan haddii saa u badato oo computer-da bataan oo magaranaysa xarumaha bataan local area networks oo sida wax u soo bataan ayaa loo yaqaanaa enterprise LAN baa loo yaqaan ama enterprise networks waa isku mid qodobka meel isla dhignay haddaan inta meel isla dhignay ayaa waxaan leenahay qodobka meel soo Englishka kale waxaan leenahay imika halka wax kaaga muuqda saddex dabaq baa kaaga muuqda waa floor 1 dabaqii koowaad dabaqii labaad dabaqii saddexaad horta intaan dabaqa u tigin bal dabaqan koowaad inoo eega dabaqa koowaad imika intaan calaamadeen inoo eega intaas oo kaliya inoo eega inta marka sideeda u aragtid bilaa calayk bal yar xaso miyana Soho LANs ahayn waayo waxa yaala hal PC hal tablet oo access point-ga ku soo xidhmaya access point-ga asina switch ku xidhayo PC-gana si toos ah switch ku xidhisay xariga deetana iyagu switch-ga ku xidhmayaan switch-ga wuxuu ku xidhayaado router-ki inta sawirkaaga muuqato waa Soho LANs laakiin Soho LANs-ki baa batay barahan dushana dabaqa labaadna Soho LAN kala ka dhisan balay waxa yaala hal switch baa yaala hal access point-ga tablet-keena switch-ga ku soo xidhaya iyo PC-geena soo switch ku xidhan kaasina madhow switch-ga ku soo xidhin doona intaana dabaqa labaad u tigina kay nagu jooji hay dabaqan saddexaadna isaga wax ka dhisan Soho LAN kale marka waxa yaala sawirka kaaga muuqato maxay hal PC baa yaala iyo hal tablet oo access point-ga switch-keena ku soo xidhmaya marka waxaad aragtaa hal Soho LAN iyo hal Soho LAN oo kale iyo hal Soho LAN oo kale saddexdaas Soho LAN markii la isku geeyay ayaa meesha waxa ka soo baxay enterprise LAN baa kaaga soo baxay maxaa kaaga soo baxay enterprise LAN baa kaaga soo baxay marka enterprise LAN-ka dib waxa la waa dhowr Soho LAN oo isku tagay ayaa leedahay misla baan waa group of Soho LANs ama waxa leedahay Soho LANs-ka maxaa lagu ogaa dhowr computer yaala laakiin haddii computer bateen maxaa kale lagu yaqaanaa switcher haddii switches-ka bataan enterprise LAN sidoo kale maxaa lagu yaqaanaa router-roodii oo yara haddii router bataan ayaa loo yaqaanaa maxay enterprise LAN markaas noqonaysa haddaba inta haddaan isla fahnay laba arin oo inagu soo socda ayaan imka ka sii dhawaajinaya ariga koowaad ka sii dhawaajina wax weeyaan halkan waxa kaaga muuqda in Soho LAN-keenaasi inta halka PC-ga la switch laga soo gaarayo inay switch-kan ku xiriirsan yihiin sidoo kalena
dabaqan labaad soo halaanka ka soo baxaya iyaguna si toos ah kula xidhiidhsan yahay switch-kan sidoo kale waxa kaaga muuqda soo halaanka kale ka dhisan halka dabaqa sare inay si toos ah ula xidhiidhsan yihiin switch-kan kale ula xidhiidhsan oo halkay si toos ah ula xidhiidhmayaan router-ka ileen switch-kan qodobka u fiirso switch-adani goormay router-ka u baahnay oo markay dibadda u baxayaan marka maanay maskaxda ku soo dhacdeen switches-kan kan dhexda laga dhex saaro biyo si toos ah ula xidhiidhmaan router-ka yani inta niyadaad ku soo dhacneen waxaan ku leeyahay switch-ada saddex baa loo qaybiyaa switches-ka imisa loo qaybiyaa ama shabakadaada ma dhowaan gaari doonaa saddex baa loo qaybin doonaa waxaa loo qaybiyaa qayb loo yaqaano axis qayb loo yaqaano ama switch-daada laftigeedaba waxaa loo qaybiyaa saddex nooc axis switches waa nooca koowaad ee switch-ada maxay qabtaan iminkaan ka warramaya iyo nooc labaad oo loo yaqaano distribution t r u p a t i o n switches nooca saddexaad maxaa loo yaqaana core switches aan qoro nooca saddexaad maxaa loo yaqaanaa halkee bannaan dhanka baa inoo bannaan soo waxaa loo yaqaanaa core switch ayaa loo yaqaanaa core switch baa loo yaqaanaa waxaa loo yaqaanaa core switch saddexdan nooc waa switcho maxay saddexdan switch ku kala duwan yihiin halka imika sawirkeena si aan iskula fahanno bal horta waan baabiyey miya ku celiyo noocii kooda wuxuu ahaa axis switch kood ila aragtay noocii labaad wuxuu ahaa distribution-ka noocii saddexaad core buu ahaa waxaan ku leeyahay horta core-ka dib yar noogu dhig core-kaas dib yar noogu dhig labadan la kaale axis-ka iyo distribution-ka halka waxaa nooga muuqda laba nooc baa nooga muuqda switches la yidhaha axis switch iyo switch kale la yidhaha distribution waxaan ku leeyahay switch 1 ka switch 1 ay ku qorantay iyo kaa kale ku qorantay switch 2 iyo kaa kale ku qorantay switch 3 dhammaantoodba waa axis switch maxay ku noqdeen anaa ka warramaya sidoo kale waxaad ila ogsoonaataa switch-ka kale ee d ku qoran tahay oo macnaheedu d loo soo gaabo distribution halkaa switch-na isaguna waa maxay waxa loo yaqaanaa distribution switch waa loo yaqaan haddaba maxay kala yihiin waxaan ku leeyahay qodobka meel ku qoro switches-kaaga hadday si toos ah ugu xidhan yihiin kombiyuutaradaada ama end use kombiyuutaradaada ama noqdaan ama mobiladii ama end user dhammaan qalab walo end user ah sida imika haddii halkaas kale u yaallo server oo kale uu switches-ka si toos ah ula xidhiidhsan yahay sida computer-kan oo kale kaagamud si toos ah ula xidhiidhsan yahay switch-ka waxaa loo yaqaan axis switch ama waxaa loo yaqaanaa almubaddil alwusuul afcare maxaa loo yaqaanaa almubaddil mubaddil macnaheedu waa switch baa loo soo gaabay ayaa loo yaqaanaa afcare almubaddil alwusuul baa loo yaqaan oo macnaheedu tahay each switch walba oo adduunyada yaala oo aad aragtid oo si toos ah ay kombiyuutaradu ugu soo xidhan yihiin waxa loo yaqaana axis switch qodobka meel masala dhigin laakiin distribution switch waa switchka isku xidhay switchada kala isku xidhaso oo imka sawirkan kaaga muuqata distribution switch kan bal u fiirso distribution bal switch kan u fiirso isagu kombiyuutarada si toos ah ula xidhiidhsan computer-kaas si toos ah ula xidhiidhsamay laakiin isaga wuxuu isku xidhaa bal qodobka u fiirso wuxuu isku xidhayaa switch 3 iyo switch 2 iyo switch 1 saddexdaas say wada xidhiidhaan ayaa waxa isku xidhaya switch-ka loo yaqaano distribution switch waxaa loo yaqaanaa distribution switch waa switch-ka isku xidha switch kale ama ha yaraadaan ama bataan laba switch ha noqdaan saddex switch afar switch shan switch ha bataan taasina ma khusayso nooca loo yaqaana core switches-ka loo yaqaana core switches waxa weeyaan waa switchada isku xidha haddii meesha ay yaalaan distribution switches badan oo kale tusaale sawirkeena ku soo noqo way si kala sareeyay waxaan inaad ila fahantaa laazim waxaad ka soo qaadaa switch 1 ka soo martay waxaad ka soo qaadaa halkan oo kale soo halaan kala ka dhisan halkan waxaad ka soo qaadaa soo halaan kala ka dhisan deetana halka waxa yaala hal computer oo sida PC-gaas oo kale yaala iyo tablet-kaas yaala tablet-kiina waa ka haye halkan oo kale waxa yaala hal switch waa switch 4 hayala switch 4 bayaan waxaad ka soo qaadaa imka switch tiisi soo toos ah la xidhiidhsamay switch-ka waxaad ka soo qaadaa inaanu ku xidhmayno switch kale ka yaalo loo yaqaano switch waxa loo yaqaanaa switch 10 baa loo yaqaanaa switch 10 baa loo yaqaanaa switch-kan halkan switch 3 soo kan ugu soo xidhmi lahaa kuma soo xidhmin be kaasoo ku xidhmayba ka soo qaad mala socota switch-kan kale ama soo halaanka dabaqa afraad ka dhisanaa signo si toos ah wuxuu la xidhiidhsan yahay maxay switch 10 kaas
halka waxa kaaga muuqda switchkan loo yaqaan switch D waxa ku xidhiidhsan switch 2 iyo switch 1 buu isku xidhaa oo distribution switch yahay switchka tan loo yaqaan isaguna wuxuu isku xidhaa switch 4 iyo switch 3 buu isku xidhaa haddaba haddii la rabo switch 10 kaas isaguna distribution matalaya iyo switch D oo isaguna distribution matalaya haddii la isku xidho switchka loo baahnaanayo ayaa loo yaqaanaa distribution switch ayaa loo yaqaanaa maxay core switch oo waa switch kala isaguna kala wax loo yaqaanaa switch core waxa la soo gaabsaa xarafka C core si wuxuu isku xidhayaa laba distribution wixii ka badan oo kana si toos oo la soo xidhmaya kana si toos hadalkan soo koob switcheska saddex waan kala qaybin iyadoo gadaal ba ka arki doono switch loo yaqaan axis switches ahna switchada isku xidha ama si toos ah computeradeenna ay ugu soo xidhmaan ama each device loo yaqaan end device ama computer haado ama laptop haado ama hub haado ama bridge haado ama qalabyada loo yaqaan IDS ka oo intervention detection system noqdo iyo wixii kale la xidhma qalabada ay ku soo xidhmaan switchka ayaa loo yaqaan axis switch laakiin switcheska isku xidha laba iyo wixii ka badan oo axis ah sida saddexdan kaaga muuqda isagana waxa loo yaqaanaa distribution switch like switchka isku sii xidha distribution badan ama laba distribution ama saddex distribution isagana waxa loo yaqaanaa maxay isagana waxa loo yaqaanaa core switch si aan soo koobo waxaan rabaa inaan iyo dib yar aan loo baxo waxaan rabaa inaan yar ka baxo deetana halkan baan hal slide baan furanay waxaan rabaa inaan soo koobo qodobka u fiirsamo saddexdii nooc baan soo koobaya saddexdii nooc ee switcheskan soo koobaya haddii meesha ku yaalo hal switch eeda waxa la soo gaabiyo waa axis haddii meesha ku yaalo hal switch oo axis ah iyo hal switch oo kala axis ah iyo wixii ka badan switch oo kala axis ah switchka isku xidho waxa loo yaqaanaa distribution baa loo yaqaanaa switch D da waxa soo gaabiyo distribution haddii meesha ay yaalaan halkan kale waxa yaala ka soo qaad switch kala sogna axis ah halkan kale waxa yaala kale switch kala sogna axis ah silifan iyagana waxa isku xidho waa switchka loo yaqaano switchkii loo odhan jiray distribution haddaba saan isku xidhnay switchkan kale signa distribution ka matalaya iyo switchkan kale loo yaqaan signa distribution ka matalaya saan isku xidhno switchka loo baahnaanayo waa switchka loo yaqaano waa core switch core switch waxa loo yaqaan switch core ayaa loo yaqaan qodobka meel misla dhignay inay saa ku kala duwan nidaamka labaad ay ku kala duwan yihiin waxaan leenahay switch 1 switchka loo yaqaan axis-ka waxa uu fahmaa switcheska nooca loo yaqaan axis-ka ee isku xidha ay ku xidhay qalabadeyna end devices-ka ah ee sida computerada PC-da waxa loo yaqaan layer 2 switch waa loo yaqaan waxa loo yaqaan layer 2 switch waa loo yaqaan waa switchka layer 2 laga helo oo data linkiga ama wuxuu fahmaa MAC address laakiin switchkeena hadduu isku xidho laba axis oo uu matalayo distribution waxa loo yaqaan layer 3 device baa loo ama layer 3 switch waa loo yaqaan macnaheedu tahay layer 2 waxaan jeedaa layer 2 maadaama layer 3 yahay layer 2 na uu fahmaya layer 3 na uu fahmaya oo macnaheedu waxa laga yaabaa layer 3 switch weeye oo waa network layer ku ka shaqeeya switchkaagu hadduu isku xidho laba distribution wixii ka badan uu matalayo switch corner isagana waxa loo yaqaan layer 4 baa loo yaqaan waxa loo yaqaan layer 4 markaan ku leeyahay layer 2 maxaan ka wadaa waxa xaasta oo say model layer 2 yaha data linkiga aha layer 3 yaha network aha layer 4 yaha waxa aha kii loo odhan jiray transportiga marka qodobka meel ku qor haddii qodob ereyga maqasho qalabkaasi waa layer 2 macnaheedu maxay waxa uu fahmaa MAC address ku fahmaa MAC address-ka isla chapter gudihiisa ku baran doono waana casharaanta ugu dambeeya chapterkeena qalabka hadda maqasho layer 3 weeyaana waxa laga wadaa waxa uu fahmaa IP address-ka iyo MAC address-ka hadda macnaheedu maqsid layer 4 weeyaan waxa maqasho macnaheedu tahay waxa uu fahmaa MAC address-ka IP address-ka iyo waxa kale uu fahmaa port numbers-kana waa nigi chapter hore ka waran intaasaan ku soo koobaya videogan laakiin aan switcheskan way noo soo socdaan iyagoon mar kale si sharaxi doon oo ku celin doonay ilaa inta laga fahmayo videogan intaasaan ku soo koobina wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh